بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن داود يالي ودقيستيال kusoo dhawaada waraysi gaar ah aanu la yeelanayno wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda dalka Finland mudane Bak Haavisto oo isagu wafdi hogaaminayo socdaal ku yimid Soomaaliya waxaanu wax ka weydiin doonaa ujeedada socdaalkiisa iyo arrimo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya markuu ugu horeysa wasiirka waxaanu weydiinaynaa bal inuu faahfaahin inaga siiyo socdaalkii ku yimid Soomaaliya ujeedkiisa ay kulamada uu la qaatay madaxda qaranka. farxadda ii tahay inaan mar kale soo booqdo magaalada Muqdisho xilliyo kale ayaan joogay Soomaaliya hadda waxaan kulan miral dhal ah la qaadanay madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka arrimaha bay'ada waxyaabahan ka wada hadalnay waxa ka mid ah arrimaha ammaanka mustaqbalka Soomaaliya arrimaha daris wanaagga sida igad oo Soomaaliya la wadaagto sidoo kale waxaan diiradda saarnay waxa ka mid ah sidii aan isaga kaashan lahayn arrimaha deegaanka oo aan heshiis is-afgarad ah oo dhex maray annaga iyo wasaaraddiina bay'ada iyo isbeddelka cimilada mudane wasiir Soomaaliya waxa ay sameeynaysay horumar ee dhinacyo kala duwan leh sida dawlad dhisidda sidoo kale ay isugu jirta ammaanka iyo dhaqaalaha ka waran dawladda Finland sidee u aragtaa horumarka imika ka socda guud ahaan Soomaaliya xaqiiqdii aad ugu hambalyeynaya Soomaaliya guulaha ay gaartay dhinacyada arrimaha hanaanka diyaarinta dastuurka iskaashiga ka dhaxeeya dawlad goboleedyada iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab dhammaan arrimahaas waa muhiim beesha caalamku oo ay ku jirto midowga Yurub waxay si buuxda uga taageerayaan Soomaaliya dhinacyada nabadgelyada iyo horumarinta dhaqaalaha dabcan Soomaaliya sidoo kale waxa saameyn xoogan ku yeeshay dagaalka gardarrada ah ee Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine waxa ka dhashay sicir barar dhanka cunnada ah waxyaabihii Ukraine ay u dhoofin jirtay dunida kale sidoo kale Soomaaliya waxa saameeyay cudurka COVID-19 oo in muddo ah lala tacaalayay gacan ayaan ka geysan doonaa sidii Soomaaliya culeysyadaas oo dhan looga garabsiin lahaa ka soo kabashadooda iyo dhismaha mustaqbalka dhow sida aanu la socono Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay sameeynaysay horumaro dhinaca diblomaasiyadda la xiriira inay dib u soo celiso xiriirka diblomaasiyadda uu kala dhaxeeyay dunida inteeda kale oo ay ku jirto dawladda dalka Finland marka sideed u aragtaan xiriirka dhinaca diblomaasiyadda Finland ee Soomaaliya ka dhaxeeya dhinaca diblomaasiyadda xiriir aad u wanaagsan ayaa ka dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Finland dabcan waxaan isku dayaynay in aan ka taageerno Soomaaliya ammaanka dalka nabad ku soo dabaalidda iyo xalinta khilaafaadiyada arrimaha gobolka haddii aan dib u milicsado taariikhda mashaariicda horumarineed oo aan ka fulinay Soomaaliya oo ay ku jiraan caafimaadka hadda waxaan dadaal ugu jirnaa sidii maalgashi dhaqaale ay Soomaaliya uga samaysan lahaayeen shirkadaha ganacsi ee Finland sidoo kale jaaliyadda Soomaaliyeed in doorkeeda ay qaadato waxa jira qiyaastii ilaa 20,000 oo jaaliyad Soomaaliyeed oo ku nool dalka Finland kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa kuwo u dhuun duleela arrimaha dalkooda sida aanu la socono mudane wasiir Bak Haavisto Soomaaliya waxa ka socda howlgal military oo dalka looga sifeynayo kooxda qawaariijta ee Al-Shabaab oo hormuud ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu yahay doorka beesha caalamka ee ku waadan amni ku soo dabaalida Soomaaliya iyo in shabaab dalka laga saaro Well, of course, Finland has been supporting the EU training mission in Somalia. dabcan dawladda Finland waxay qayb ka tahay dadaalada midowga Yurub ee Soomaaliya waxaan qayb ka nahay taageerada iyo tababaridda ciidanka Soomaaliyeed arrimaha xasilinta amniga Soomaaliya waa muhiim deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab iyo sidoo kale meelaha weli harsan waxaa jira baahiyo loo qabo in adeegyo aasaasi ah laga hirgeliyo sida waxbarashada caafimaadka iyo kuwo kale oo muhiim ah tallaabooyinkaas oo dhan waan ka qayb qaadanaynaa sidoo kale waxyaabaha kale ee aan ka walacsannahay waxaa ka mid ah falalka burcadnimo ee Al-Shabaab u geysanayaan bulshada dhaca hantida dadka sida ganacsatada dadka muruqmaalka ah iyo hal-abuurayaasha Soomaaliyeed waxaan qayb ka qaadanaynaa olole kasta oo ka dhan ah falalka guracan ee Al-Shabaab ay ka dhex geysanayaan bulshada dhexdooda
effective campaign against this kind of corruption and mafia type of action. Yes, of course. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisu waxay qorsheynaysaa in sanada 2024 bisha December guud ahaan askarigii u dambeeya ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya uu ka bixi doono amnigan ay la wareegi doonaan haddii aatiin beesha caalamka arintani sideed u aragtaan? Well, we have heard actually during this trip that there is this kind of frontline countries, the neighboring countries who are ready to offer their troops and their involvement on security of Somalia. And of course, waxaan la soconnaa iskaashi laga samaynayo sidii al-shabaab dalka looga saari lahaa sida wadamada safka hore ee Soomaaliya oo ciidamadoodu ay ka qayb gali doonaan dagaalka al-shabaab iyo amni ku soo dabaalida Soomaaliya oo ay hormuud ka tahay dowladda Soomaaliya. waxaan rajaynayaa inay tahay arrin aad u muhiimsan waxa ay horseedi doontaa sidii xal waara loogu heli lahaa nabadgelyada Soomaaliya. madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ayaan ka wada hadalnay arrimahaasna sidii la isaga kaashan lahaa Finland iyo midowga Yurubba in xal waara loo helo nabadgelyada Finland and European Union could do to find a peaceful solution to the current conflicts that are popping up. sida aanu la socono saacatu wasiir waxa tahay qabiir arimaha Afrika ku takhasusay waxa hore u ahaan jirtay ergeygii midowga Yurub ee arimaha geeska Afrika marka la fiiriyo xaaladda Soomaaliya qaabka Soomaaliya ugu guuleysan doonta in amni lagu soo dabaalo guud ahaan dalka Soomaaliya dhinaca dib u heshiisiinta. Well, I have been working as a European Union Special Representative in Sudan and Darfur and also waxaan ka soo shaqeeyay oo ahaa wakiilka midowga Yurub ee Sudan gobolka Darfur ayaan ka soo shaqeeyay sidoo kale Ethiopia halkaasi oo aan kaga soo shaqeeyay arrimaha nabadda Soomaaliya. taladayda khibrad ahaan waxa ay tahay in xal waara loo helo xasiloonida dalka in Soomaaliya ay miiska wada hadalka ay yimaadaan oo ay wada hadlaan diiradana la saaro mustaqbalka iyadoo meel la iska dhigayo wixii la soo maray. sidoo kale haddii dhanka aqoonta laga dhiso bulshada Soomaaliya waa wadan barwaaqo sooran ah waxa ay leedahay khayraad badan oo dabiici ah dhalinyaro badan ayay leedahay haddii fursad loo abuuro dowr ayay ka qaadan karaan arrimaha dhaqaalaha. And hopefully when these young people are better educated, Somalia economy will also flourish. And of course, economy is part of the peacemaking. dhinaca kale mudane wasiir dowladda Soomaaliya waxay dadaal xoogan ugu jirtaa in la sii ambaqaado dardargelinta wada xaajoodka ee Soomaaliya iyo Somaliland ergeyga gaarna waa dhawaan waxa uu magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ka dowladda Finland ahaan adinku muxuu yahay mowqifkiina la xiriira arrimaha dhinaca siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland? Well, of course, we know that Somaliland has its own history and own identity, and there are, by the way, quite many Finnish Somalis also involved. waxaan ognahay in Somaliland ay arrimaheeda si gaar ah u wadatay taariikh ahaan waxaa jiray xitaa qurba joog reer Finland ah in ay qayb ka yihiin arrimaha siyaasadda iyo maamulka ee Somaliland. dhanka colaadda lascaanood waxaan qabaa in dagaal uusan xal ahayn nabad in lagu noolaado waa muhiim. tusaale ahaan Finland ama wadamada kale ee Yurub ka mid ah ayaa la mid ah sida Somaliland arrimaheeda oo howlahooda si gaar ah u wata balse waxaa muhiim ah dadka Somaliland dhexdooda in ay nabad ku wada noolaadaan ayaa wanaagsan oo colaadda laga hortago khalalaasa marna ma fiicna. Are living peacefully among each others and even if there are ugu dambeyntii wasiir Beck Havesto waxaa jirta Soomaali badan oo ku dhaqan wadanka Finland oo iyagu in muddo halkaas ku noolaa qaab nuucee ayay fursadaha wadankaasi ka jira ay uga helaan Soomaalida? Well, we have actually at least 20,000 Somalis living in Finland and people are active in economic field. waxaa jira ilaa 20,000 oo Soomaali ah oo ku nool dalka Finland door muuqda ayay ku leeyihiin dalkaas sida siyaasadda qaarkood dhanka dhaqanka iyo dhaqaalaha
waxaan muqdisho kula kulmay jaaliyad Soomaaliyeed ee Finland oo dalka dib ugu soo laabtay kuwaas oo ka qayb qaadanaya dib u dhiska dalkooda iyo mashaariicda horumarineed nabad dhisidda marka waxaan aaminsanahay in qurba joogta Soomaaliyeed ay kaalin muhiim ah ka qaadan karaan horumarka dalka ka socda mahadsanid daawadayaal iyo dhegaystayaal guud ahaan waxaanu halkaasi ku soo gabagabaynaynaa waraysiga gaarka ah aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Finland Pekka Haavisto oo isagu wafdu hogaaminaya socdaal ku yimid Soomaaliya waxaad waraysigan kala socotaan warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan aad baan kaga mahad celinaynaa wasiirka fursadda uu na siiyay. Thank you very much, dear minister. Thank you. This is my pleasure. Thank you. Thank you very much. Meeting you.